هذيك الديار موتي أنا عدو أنا أسكت القام الله أكبر الله أكبر waxaa maanta deegaano hoosta degmada Rurugood kula hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Cadaan Lixi saraakiisha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Ugaas Axmed Macalin Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo hormuud u yahay taliyaha guutada 28aad ee Abu Ubayda Cali Xuseen Kuuso Cali Waamo taliyaha guutada Abu Ubayda iyo saraakiisha kale ayaa u sheegay dhalinyarada haddii ay arkaan qaf amniga lidu kuwaas sida argagixisada Al-Shabaab ama cidii ay garan waayaan ay la soo xiriiraan ciidanka horta nimanka shabaab yiraahdo idinka sheekayna wadankan way ku yeerin waxay jiraan bay boqol iyo gedi ilaa shabeelada hoos ay jiraan waxay wataan quraan ma ana idin sheegay maanta dhageysta hal nin oo quraan la barin ma idinku jir soo ma taqaanin ayda ay wataan oo kitaabka Ilaahayna aan ahayn ina fajana wargagana injirbooda ladina goodo mana shaakirina quraanka Ilaahay ma ku jir horta ma ku jirta horta taasay wada waxay dhahan wixii anaga aan ahayn inaan argagixino mid kale aan idin sheegay horta taas qaadanin mid kale ay dhaayna jirta hadana oo buuqoodi shanta balood ku qoran kama ulan kama kuyu kurur min kalkaalin ka ajuusati ka luglugat ajuusina ta laga ma tagi kare waa la qarinayo yaa ku qoran waxaas ma quraan Ilaahay abiin maantaas u idin baray waxaan idin ka rabaa nimankan adoo masaajid ku socdo lugtaas $100 ka qaaday lugta hal luga banaanka ku taal masaajidka adoo galay aygan hal nin oo tukado ma hal nin oo maartay soomo kuma jir waxaan arkay ayagoo taksiin u taagan tahay dilin oo jaad afkooda ku jir tubaaka ayagoo maartay u saaran tahay dilin horta nimankan ayaga al shaydaani al qushaash waay haddii idinka aad nala shaqaysaan shabaab inta iska dhaafay Soomaaliya oo dhan ka xoreynayna inaan shantaas oo kale naqdaan oo annaga nala shaqaysaan oo isgarabsano ninkii baxay ninkii soo galay inuu taleefamada intan oo askari dabli sirkaal macal gudoomiye macal ugaas nambaradooda inaad qaadataan ani maartay meel cidlaan jooga nimankii soo socod inaad soo dhahdaan inta anoo dhalinyaro oo rabta nabadgelyada oo la shaqaynaysa ciidamada xoogga dalka rabaa inuu gurigooda xiro oo shaydaamiinka in laga qaado ay diyaar u yihiin mabana hal barqabana ma hay karaan intaanoo dhalinyaro oo isku muuqaf oo rabto in cadowgan ay dushiisa laga dul qaado ay iska xoreeyaan rabaan wallaahi billaahi insan barqabna hay karin almahayna iyo marasayna waxa beenta u akhriyayo oo kitaab wadin inaan iska dul qaadno diyaar mootiin gacanta ma sha Allah Allahu akbar horta waa mahadsantiin wax kale talaydima wada waa inaad deegaanka ammaankiisa aad ka shaqaysid haddii aan shacabku ka shaqayn lagama shaqayn karo askartan qaranka oo nala joogto inaad la shaqaysiin ood wuxuu warbixina amba jawi degan oo ammaanka xaqiisa inaad kala shaqaysiin laydinka rabaa wax kale tama jiraan haddii intaanu dhalinyaraha ay intuu timiday idoo qoryo qaadaysaaba ka sii fiicnaa lahayd in la helo laakiin ma waa la heli doonaa qorin waa la heli dad mud diyaartiin dadbuuti waa la heli doonaa marka inaad ammaanka kala shaqaysiin intaas kaliya waa inta laydin wacay saraakiishuna ay idinka wacdi geliso oo idin sheegto habeenkii waa la socdaa gaadiid aad wadatiin qaarna lugay ku baxaan la iska manwar hayo marka in la iska war helo si degan beledka lagu joogo laguna soo galo kii ka baxayana oo si degan uga baxo saasay saraakiishu rabaan oo amniga ka qayb qaadan karto marka inta la isugu keenay sidaas waayo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha guutada Abu Ubayda Cali Xuseen Kuuso Cali Waamo waxa uuna dhalinyarta kula dardaarmay inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ee ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada Rurugood waxaa la yidhi nin sici uu lahaa asaga sinaha uga fadhiya makacad waxaa maanta ku faraxsana intaan oo dhalinyaro ah oo hortayda fadhido
oo caafimaadka qabto oo amaanta ku kulanay geedkan quraca hoostiis aad ugu faraxsan deegaanka kale waxa ka jiro dad xoreynaya deegaankooda ka jiro waxaad leedahay deegaamyada waxa laga aasay macawsley waxa xariis qof waxa xoreeya deegaankiisa xoreeya oo waxaan ku leeyahay sac minjaa ninka la sinaa oo fadhi ma kacdo san qof kasto maskaxdaada yarta hadda baasho isdhex fadhida oo aqligaaga yarka gadaal aad u baartid war waxaan aad ku jirto maalin kasta oo lagu leeyahay rida ariga ugu ron soo bix hasha geel ugu ron soo eri hebel soo bix barnaamijka sayida adinkan in ma wanaagsano deegaankan oo ma wanaagsano anagana ma wanaagsano waxa kale oo nagu batay intaan joogno cadaan lixayna waxigeed wax la yiraahdo mooto ama saddex lugood halaad ama laba lugood halaad mooto nagu badan mootada waxaan rabnaa qorraxda 11 ka galabnimo markay gaarto mootadii soo baxayso alaab qaadayso waa inay ogyihiin saraakiishii macawslada deegaanka jooga la yiraahdo mooto hebel oo meelebla ka soo qaadayso qof xanuunsan oo meelebla geenaysa tali meelebla ka soo baxayso wixii la yiraahdo birq loo socdo oonan ogeyn waa arrin wax cadow hadday ka soo baxayso daarnimo yaanday ka soo baxayso cadcaday yaanday ka soo baxayso urgood meel u dhow yaanday ka soo baxayso nuur duule waa inay ogyihiin ciidamada deegaanka jooga ku sugan waa inay ogyihiin oo la yiraahdo meelebla waxa ka soo baxayso mooto qof xanuunsan wado oo isbitaal hebel u wada u soo baxayso waxa soo baxayso mooto u socota meel hebel oo qof wado oo xanuunsan baa wado meeshaas marayso laakiin iska hubi iyo iska fiiri iyo xaqiiqi kuma howlgalin caawa laga bilaabo warka soo maqlaysaan 11 qof kasta mooto meel ku xarayso waaga markuu ku bariyo subaxeena la soo bax way dawaan gashay inta arkoodinkooda waa leen ka qoran malaynay kuwa in ka maqanna u sheega oo hadda ka maqan goobtan ka maqan waxaad ku tiraadaan 11 ka amarkaas soo baxay hadduu dhacdo og yahay hadduu og yahay ninka macawsleyda hadda xukuumadda deegaankan hadduu og yahay saraakiisha tali ururada iyo badulaha guutada iyo og yihiin deegaanka hadduu og yahay ugaaska ayaga isgaarsiinay laakiin ma aqbalayna mana aqbali doono leer ka soo kacay halkaas iyo leer ka soo kacay halkaas iyo leer ka soo kacay halkaas kee cadow kee caadi ma aqbali doono Saad Maxamed Suufi warbaahinta qaranka gobolka Shabeellaha Dhexe.